السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة سو دوادا صباح وناسن. أصحابتي قالقة سيتهين في عنتهين وحرجينا يا إن العافيمات قبطان سيد أننا أو عافيمات قبنا إذا كان إن أو عافيمات قبتين أي رجينا يا أصحابتي قالقة سيدا هور إذن كل شيء وحيالا بدن أي challenge ku arki doontiin horaa idin iri karaal noqda horaa idin iri waxaad ku arki doontiin fiidiyoyaal qurux badan wax kaste oo idinka waxtar idin ahna ina idin soo gudbin doono wata hore idin kugu sheegnay ma fahanteen anagoo ah samajecel media iyo biibahabi sida u jeedin maanta waxay idin wadnaa wax badan oo dad badan hadda wajigooda sida uu yahay ay ka cabanayaan waxyaalo badan fitamiinaadkooda oo wajiga oo hoos u dhacay wajigii oo ka bahdilmay wajigii oo waxaan ku dhahaa isaga dhan dulduleelo ka yeeshay waxyaalo badan ayaan idin wadnaa insha Allah inaan ila soo share gareyno mid kale waxay tahay wax kaste oo annaga intaan tijaabinayna afacay oo aan ku fiicnaanay oo wajigeena kaala arag oo ku noqday alxamdulillah idinkan waxaan rajeynayaa inaan idinkaga fiido idinkaga soo duubo saata hore idinku sheego wax kaste oo na anfacaya idinkan ida anfacaya waxa dabcan aniga ay anfaco idinkan way ida anfacaya because qof ma jiro wajigiisa waxan inuu mursado rabo ma jiro qof ma jiro maqaarkiisa inuu ka halaabo qof ma jiro rabo inuu bahdilmo ma jiro qof kasta wuxuu jecel yahay waji qurux badan inuu magaalada ku maro ayuu jecel yahay fiidiyogan maanta wuxuu ku saabsan yahay fitamiinaadka wajiga face-ka gabdho badan ay la soo xiriir walaalo wajiga caataanka nahay kareenka idaawada amarsanayna asaatan naga yeelay wajiga naga halaabay oo naga bahdilmay nafaqo sidee ku heli karnaa sidee nafaqada ayaan ku soo cishan karnaa marka waxaan iri nafaqadiina inta aniga aan ogahay oo aan ka aqaano ayaa un baan fiidiyo idinkaga soo duubaya waan idin soo gudbinaya gabdha ayaa saas uga balan qaaday oo soo wacay teleefonkeyga iga soo wacay oo yiri walaalay saas aan haysato wajigiisa saas naga wuxuu naga yeeshtay godgod wajiga godgod ayuu naga leeyahay wax soo buuxinaa inoo sheeg maxay aad ii sheeg wajigeeni laf ogaa uu naga caatoobay meelaha aneeti waxyaalo badan marka waxaan ku iri insha Allah waxaan rajeynayaa wax idinka wax suurtagal ah oo aqaadan kartaan oo sidaas aan u weyneyn idinkan waxtar idii ah ayaan fiidiyo clip idinkaga soo duubayaa insha Allah waan idin soo gudbin doonaa marka maanta ayaan jaanis u yeeshay inaan idin la soo xiriiro idin soo gudbiyo fiidiyowgii gabdhihii aan ka ballan qaaday ayaan rabaa ma fahanteen gabdho hore u isticmaalay aan u sheegay way jiraan ayagana insha Allah inay ayagana ku liibaanayna rajeynayaa idinkana waxaan rajeynayaa sidaas oo kale inaad ugu fiicnaatiin sida gabdhahaas ayagana ay ugu fiicnaadeen wajigooda ay ka dareemeen hadduu dulduleel lahaa soo buuxsamay haddii uu wajigooda xoogaa caata ahaa xoogaa usoo qorxoonaaday ayil saas oo wajiga aad u buuran looma baahno laakiinse wajigu wuxuu iska fiican yahay xoogaa yar inuu iska fiican aquul yar caata saa'idna lama rabo ayil saa'idna lama rabo waxaa la rabaa dhexdhexaad yuuna kaa burnaanin yuuna kaa caatoobin ma fahmi marka tii u dhexaysay waxaan rabnaa marka inaan idin tusnaado waxaan ku soo buubuuxin karnaa maxaa caatada uga maarmi karnaa sidee caato uga kaaftoomi karnaa oo face-ka ah waa ka marka insha Allah kaliibkan yar ayaa idinkaga soo duubay nala daawada nala socda tiimka ku xiran samajecel media iyo biibahabi labaduba waa ida anfacayaan asxaabtiina kalena la sii share gareey insha Allah kareenkan
waa ujeedin navina aa lahaa VEB yaa lahaa ujeedin VEB yaa lahaa magaciisaaba VEB yaa lahaa magaciisaaba ku qancinaayaba intaana wax kale la gaarinba soo ma jeedin magaciisa waxaa la yiraahdaa VEB waa kaasaa VEB yaa soo qaadanaya waxyaraa ka soo qaadanaysaa markaa ka soo qaadato waxaad ku darsanaysaa aloe vera gel soo ma jeed aloe veradaas ayaad wax yar ku darsanaysaa waxaad soo qaadanaysaa VEB dareenka la yiraahdo VEB ayaa soo qaadanaysaa waxaad ku darsanaysaa aloe vera gel aloe veradaasayta ayaa wax yar ku darsanaysaa waad isku qasaysaa marka waxay isku noqonayaan qurux liisha ah waad qasaysaa markaad qasto oo safti qurux badan aad ka dhigto oo indhahaaga soo jiidanaya ayaad waxaad ku darsanaysaa bat3 oo ah fitamiinkaas fitamiinkan ayuu noocu leeyahay nooca aragtida ku darsanaysaa mid kasta waa isku mid kalarka unbay ku kala duwan yihiin waa isku wada mid soo ma jeed iyaa la yiraahdaa aad ku darsanaysaa 2 xabo 3 xabo ilaa 4 xabo hadaad hal xabo ku darsan kartaa ma fahmi 3 xabo ku darsan kartaa 2 xabo ku darsan kartaa hal xabo ku darsan kartaa marka asxaabteeda sidaan hore idinkugu sheegnay waa kaasa inay fahanteen waa rajeynayaa insha Allah VEB waa party 1 party 2 oo ah kare lagu qasanayo aloe verada marka isku qasto kadib labadooda oo saasa isku qasto oo si qurux badan ay ku noqdaan kadib ayaa waxaad ku darsanaysaa fitamiinka sida hore idinkugu sheegay daarta hal xabo daarta 2 xabo sida uu kala qofka wajigiisa u bahdelan yahay isaga yaqaano haddii wajigaaga aad u bahdelan yahay 3 xabo ina fay ku taaba ku darsan kartaa 3 xabo ayaa ku darsanaysaa haddii wajigaaga normal iska yahay 2 xabo hal xabo caadi waa hadaad 4 xabo iska wax ma dhibaaya isaga waa fitamiin wajigana uu ka caawinaya marka goormee marsanay waxaad marsanaysaa markii hoolahaaga danahaaga aad dhameyso oo aad seexanayso habeenkii ayaa wajigaaga soo nadiifinay ayagoo ku diyaarsan ama fridge iska darsan ama banaanka ku yaalaanba waa soo qabsanaysaa waad marsanaysaa marka waa ku seexanaysaa suuxi markuu waaga baryana waad ka dhaqanaysaa si fitamiinkaas wajiga uu caawiyo 30 daqiiqo waa ku hayn kartaa laakiin waxa ka fiican maadaama wajiga inuu ku qurxoonaado aad rabto waxa ka fiican inaad ku seexato habeenkii oo habeenkii aad ku seexato subaxina aad ka dhaqato si fitamiinka wajigaaga uu galo uu caawiyo wiig kadibna wajigaaga aad ka dareento qurux iyo dhalaal waad ka helaysaa wajigaaga bahdilmana wuu ku soo laabanayaa duduleelada wuu ku soo buuxinayaa quruxna waad ka helaysaa maxay wajiga caatoobayna xoogaa wuu soo kobcayaa ma fahmi magaciisana asaaba ku qanciyaba VEB waa kaasa waxaad uga kaaftoomaysaa wajigaaga duleelada maxay ahayd caatada waxaasoo dhanna waad ka maarmaysaa aloe veradana sideeda shay kasta mar kasta waa iska isticmaali kartaa ayada aloe verada mar kasta oo gurigaaga ay joogto xataa fiiriga adoo maanta meel aadaa bakaaro kala u socotaa waad iska marsanaysaa inshareerkaaga iska qaadanay waa iska tegaysaa ayada kaligeed maanta nan wasaqdii boorkii qoraxdii wajiga ku dhacayo dhan ma kaa gaarayaan ayadaa kaa caawinaysa hadhow waa imaanaysaa waad iska dhaqaysaa wajigaaga markaas saas u dhaqdo waxa wajigaaga biyaha ka soo baxaya bal fiir sida ay u yaalaan markii kale oo ayada aadan marsan oo magaalada aad ku aadan wajigaaga waxa ka baxaya fiir marka ayada inta isticmaasho oo aad marsato wajiga marka aad dhaqdo magaalada inta ku aad ka soo laabato aad dhaqdo wajigaaga waxyaabaha ka soo fuqay wasaqda iyo waxaasiit madoowaadka iyo waxaasiit bal fiir maanta marka baxdo meel aad boorka
qoraxda wax kasta wajiga way kaaga soo dhacay marka waxaa la rabaa wax kaa sii xijiya dabcan sida hore idinkugu sheegay wax kaa sii xijiya oo aad sii marsato dad waxaa jira iska marsada kareenka qoraxda oo qoraxda iskaga baxo insha Allah kareenka qoraxdana ana video idinkaga soo duubay insha Allah sida loo marsanayo iyo sidoo uu eegyahayna ana idin tusi doono insha Allah haduu ilaahayno asxaabteeda qaaliga ah sama jecel media iyo bibi happy oo wada jir ah xarijeynaya subscribe-ta share-ta laaga commentiga anaga baqaylina asxaabtiina la wadaaga si wax kasta oo ka qarsoon sida ay u ogaadaan sida idinkaba aad u aragteen waxay wax tarka oo maalin kasta aan idin soo gudbinayno fiidiyoyaasheena oo idin ka caawinaya face-ka haday noqon lahayd waa kaasa hore idinkugu sheegay gacmaha kii la marsanayo lugaha hore idinkugu tusafaraha madowga wixii la marsanayo haddana waxaan rabaa insha Allah fiidiyooga xigo ina idin soo sharaxo kareenka qoraxda insha Allah oo idin ka caawinaya qoraxda